la yiraahdo ugaarsatada laba nooc oo mid bariga ka ugaaratay mid badda ka ugaaratay mid badda ka ugaaratay jilaabata la yiraahdo ama dabato mid duurka ka ugaarato jid banaanka ka ugaaratayna waxa la yiraahdo ginato ama gabraarato oo falbasay u taqaan marka dadku Soomaalidu waagi hore reer miyi oo magaalooyinku waa yaraayeen markii la magaaloobayo dadku ay baldaanka qaar ku noolaadeen dadka beledka ku noolaayay kama faramarin shirabku waa shirbaay waxay ka shirbaayeen ganacsiga siyaasadda matalaada adduunyada sida wax loola qaybsado shanta qaaradood qaabkay u dhisan tahay hadda laba nin macnaha intii Talyaanigu joogay dadku waa ku milman sida badan reer koonfurka Talyaaniga waa ku milman sida badan su'aalo isweydiino wuxuu yiri xisaab Talyaanigu su'aal ku weydiiyay tarantasay tare ugay waxay taanay tilmaanu xisaabta in laga shaqeeyo la rabaa marka wuxuu yiri tarantasay tare ugay tarantanooba ma ahayno 39 waa tarantasay waa 36 tare ugay 36 saddex ugay waa 9 moqto 39 waa tarantasay tare ugay waxay taanay tilmaanu tarantasay tare ugay tarantanooba ma ahayno tarantasay hadii tare loo geeyo tarantanooba waayo 39 waayo reer magaalkuna wasaasay u shirbaayeen waxyaabaha dantooda quseeyana waa ka shirbaayeen marka ugaarsatadu kama gaari karo laakiin iyaga laftoodu ajiibay ahaayeen dad ajiiba an la xaqirayo si yaani maragta xun loola dhaqmay ahaayeen dadka oo la haybsooco waliba roob lama uunin leeyahay amba roob la boon amba roob la karre qof walba say u taqaano buugan inta shirbeeda ku xusan ninka ugu badan waay ninkaas dadka la haybsooco ugaarsatada uu kamid ahay ugaarsatada waxa lagu haybsoocay wax kale ma hayne dadkay ka aqli badnaayeen waana ka cilmi badnaayeen dadka waa ka horeeyeen dadku marka dadka qofku waxay jaahil ka tahay xaasiday ku tahay dadka noocaas waa la hagardaamiyay in la hagardaamiyay waxa inay dadka ka horeeyeen oo aqoontooda lagu haystay waxa cadeyn u ah waxa lagu dulmi jiray anna beenaheed inay baqtiga cunaan oo waxaan la bireen ay cunaan lagu dulmi jiro lagu eeday jiray dadka jaahilahay baqtiga cuni mihin midalan laba nima ugaaratay xilli galabgaab oo qorraxdu dhici rabto ayay neef ugaarahay gineen neefkaas amba waa goodir amba waa biciid amba waa awl amba waa sagaar amba waa deer wuxuu rabaa naqd neefkii marka hadii la ginay cijoodku noolaha ugu nafta jacalay kamid yihiin uguna adkaysiga badan hallo kaday soo hortay saddex ka jaban tahay waa inuu fakado isku daya neefkii qorraxdiya dhacday raadkiisa la waayay waana dilan yaho waa la ginayo bira ku taala raadkiisa hadii la waayay qorraxda haday dhacday nimanka iska seexdeen haday iska seexdeen neefkii waa habeenkii u duurka ku dhintay biro kugu baridaya la yiraahdo amba dhiibi duura la yiraahdo neefka noocaas oo shalay galab inta la dilay xala dhintay biro kugu barida amba dhiibi duur wixii la rabo asaas lagu yeeray nimankii marka baaq aan dadku isla aqaaninay yiqiineen mid kamid aha inay raadshaan ay isku damcaan ay isku dayeen mid raadki wada la yiraahdo raadka raadi ee daba gala la yiraahdo meeshuu mar midna waxa la yiri hore ka goobo qoratay ama gidaf u dhig si uun hawsh u fududaato marka midkii horeeya arkay neefkii meel ku dhintay kii dambe uu rabaa marka inuu u baaqo umadinayeen la ogaano oo la isla ogaan marka 4 kiiloomitir ka xagga inuu joogo isuma dhawo telefoon ma jiro wasafarin la isku fari maayo la isku wicimaayo in la isku qaylsho danta qasbays qaylada marka mid colaadad la dhaana la yiraahdo mid nabadeedna tanaaga la yiraahdo waa isu tanaagayeen marka wuxuu yiri habalow isu yiri hoow waa 10 tahay xagay 10 tahay rasuul Allahu akbar meesha loo dukaday taalaawa wuxuu yiri dhuub ma galayo tarxi ma galayo rasuul dhidaalba ma aragu dugaba ma arkinu neefkaas marka inuu baqtiyo dadku u qabaan ma baqtin minhaajkay ku taala falaarta ninka muslimka uu leeyahay bismillaah Allahu akbar hadii lagu gano ay ku dhacdo haduu u dhinto neefkaas waa biraysan mashaayixtana waa warsa kartiin kutubtana waa ka fiiri kartiin baqti cunaan meesha ka raacday oo ka soo daba kacdo baqtiga cunaan la leeyahay saas waay baqtina ma cunaan xalaal oo dayib ay cunaano diintu ay banays fikirkii adeegsadeen macnaha ummadda kale ma fahamsan waa 10 intay 10 Allahu akbar dhuub ma gala dhidaalba ma arag bal adigu meel u wad